shirkadda isgaadhsiinta casriga ee Somtel ayaa abaalmarino qaali ah oo uu ku jiro gaadhi cusub oo Hyundai waxay ku soo bandhigtay carwada sagaalaad ee Somaliland oo ka socota magaalada Burco taasoo si weyn uga dhex muuqatay shirkaddu waxaana ay halkaasi shirkaddu ku qabatay barnaamijkeedii abaalmarinta macmiilka halkaas oo ay ku guuleysanayeen macaamiisha Somtel hadiyado kala duwan ugu horeynba waxa halkaasi shirkaddu ku soo bandhigtay macaamiisheedii kala duwaneyd ee ku guuleysatay hadiyadaha kala duwan guuleystahana lambarkiisu waxa weeye eber 6591 eber 6442 waxa uu ku guuleystay akoon dahabshiila guuleystuhu waxa weeyaan waa eber 6594 39 macmiilkaasi waxa uu ku guulaystay moobil noociisu yahay A2 core annagu waa 435 waxa uu ku guulaystay 4G home router dhinaca kale waxaa halkaasi ka hadlay madaxa suuqgeynta shirkadda Khadar Cabdiraxmaan isagoona ka warbixiyay adeegyada kala duwan ay bixiso shirkaddu ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa dhammaan macaamiisha kala duwan ee shirkadda Somtel meel kasta ay joogaanba inta hadda inagula sugan carwada ganacsiga ee ka socota magaalada Burco iyo guud ahaanba inta kale joogto gobolada dalka waxaan leeyahay ku soo dhawaada shirkadda Somtel maanta halkan sida aad arkaysaan waxaynu ku bixinay hadiyado kala duwan iyo abaalmarino aad iyo aad u badan waxa kamid ahaa gaari qaali ah oo ah Hyundai gaari cusub gaarigaas wuxuu kamid ahaa iyo hadiyadaha aynu bixinaynayba abaalmarinta ay shirkaddu waday sanadkii u dambeeyay 2020ka taas oo aanu ku bixinay ilaa 5,000 oo abaalmarinood oo kala duwan waxaana rajaynayaa insha Allah cid kasta oo ka qayb qaadatay oo hore u guuleysatay inuu Ilaahay u barakeeyo waxay ku guuleysteen inta aan wali guuleysanna waxaan leenahay insha Allah Somtel waa shirkadda kaliyaata ee bulshadeeda mar walba wax ku celisa baabuurta aad arkaysaan qaaliga maxay yeeday qiimahoodu aad ka u badan yahay baanu macaamiisheeda ku celinay waxaana rajaynaynaa sanadkan 2021kana inaanu kuwa kale oo ka sii qaalisan iyo abaalmarino kale oo ka badan aanu macaamiisheeda u haneyn doono oo aanu siin doono shirkadda Somtel waa shirkad mar walba eegta inay macaamiisheeda wax ku celiso macaamiisha kama shaqaysana laakiin waxaanu jecelahay inaanu korino jeebka macaamiisheeda inaanu mar walba qiimo aad iyo aad u macquul oo macaamiisha ay awoodaan aanu wax ku siino oo adeegyada Somtel ay noqdaan adeegyo loo siman yahay oo aanu qofna ka qadin qofna aanu ka maqnaanin qofka inta yar haya iyo qofka inta badan haya labadaba waxaanu ugu talagalay inay ka faa'iideystaan adeegyada shirkadda Somtel waxaanu rajaynaynaa insha Allah macaamiisheeda aan leenahay waxaanu idin ballan qaadaynaa inay abaalmarinaha iyo hadiyaduhu ay sii socon doonaan oo aad intiina heshay mooyo intiina kalena insha Allah aad heli doontaan gaarigan hadda aynu bixinay waxa uu ka mid ahaa macmiilkan ku guuleystay tartamayaashii ku tartamayay adeeg maxay yeeday 5,000 abaalmarinood gaar ahaan gaarigii u dambeeyay taas oo numberka gaaban ee 5,000 amba 530 loo dirayay iyo codeey oo qof kasta qof kale oo ku lahaa iyo codeey qof kasta waxa uu codeynaya asxaabtiisa iyo familigiisa iyo inta uu yaqaano dalkoo dhan baan codeyntaas ka socotay macaamiisha waxaan leenahay sanadkan hadday idin dhaaftay ka dambaba yaanu idin dhaafin insha Allah macaamilka gaariga helena waxaan leenahay insha Allah gaariga waanu ku gudoonsiin doonaa furiisina waa kan waxaana rajaynaynaa insha Allah inaad caafimaad qab gaariga ku gudoomi doonto Allahna ku barakeeyo shirkadda Somtel waxay leedahay macaamiisheeda ku soo dhawaada gacmo furan markasta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu dambeyntii shirkadda ayaa si rasmi ah halkaasi waxay uga dhawaaqday macmiilkii ku guuleystay gaariga cusub ee Hyundai-ga ah waa eber 6594 26 waa shirkadda Somtel baa kula aaminsan waad guuleysatay horta markii koowaad waxaanu ku leenahay hambalyo abaalmarin weyn baad ku guuleysatay magacaaga saddexan iyo meeshaad joogto tanaag baad joogtaa hambalyo jamaal jaamaco waxaanu ku leenahay hambalyo waxaad ku guuleysatay gaari cusub oo Hyundai heersanaag iyo dhammaan macaamiisha Somtel lagu bushaaraynaynaa sacabka waa Maxamed Suldaan telefishinka on cable Burco ma ogtahay macmiil in shirkadda Somtel ay ku daafurtay wajigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai mobaylo talaagado qasaalado tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hotelada
damal ah ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale account dahabshiil ah oo ay lacag kugu jirto haddaba si aad uga mid noqotid guulaystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee e-dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefonkaaga kadibna geli telefonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adiga oo u diraya lambarka 5000 waxaad ugu diri kartaa si lacag la'aan ah ama bilaash wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiid lambarka gaaban ee 333